قراءة هدف بي وباهنتي إن هدفك للتحديدية قولك قراءة كلاده أو قراءة لقومة قيمية تربدني ديده أما درر كيده أو حلقو قيمية دقة ديده هي قيمة هذا يعني واحد أخريسة سيدو فائدة وليه marka qofka warrabo inuu wax akhriya dhalinyaradu weyn isweydiiya maxaan akhrinaya sabab baan u akhrinaya qaabkaan u akhriya maxaan akhrinaya weyn isweydiiya waxaad akhrinayso dhima haday tahay Manchester baa Liverpool ka badisay waxaad habeen iyo maalin ba akhrida haday tahay waxba faa'iido maysid waxaad maalin iyo habeen ba akhrida haday tahay jariidada sheekadan page koowaad ku qoran something waa laga yaabaa language-kaagu in yar inaad wax akhri karta oo yara dhismo laakiin qiimo nololeed ma leh wax kaasoo raacaya ma jiro waxaad akhrinaysaa markaa waa inuu noqdaa wax hadaf leh weliba wuxuu siday u kala muhiimsan yihiin qofka waa inuu akhriyaa kow waxa waajibaadka ku ah waa inuu akhriyaa diintiisa kaga waajiba laba waxa takhasuskiisa waa inuu akhriya ee uu baranayo dadka badba wax akhriya hadana ummiya adigoo wax akhrinaya si aad u tukato hadaad garan weydo qiraa'ada faa'iido ma leh professor salaada tukan karayni ama garanayni salaadiisa waxay ku asaxaysaa qiimo ma leh idan waxaad akhrinayso waa in la garan karaa hadafka aad ka leedahay qaabka wax loo akhriyana waa kala gadisay waayo waxaad akhrinaysaa buu ku xidhay mar waa qiraa'atu tasliyo waad iska rogrogaysaa yani buug taariikha ama sheeka ama novel ama wax lamida sida loo akhriyaa waa si gaar ah buug cilmiya markaad akhrinaysaana waa qiraa'atu tafahum wa tadabbur waa ka gadisantay waayo sentenisyada dhexdooda la akhriyaa markaad qiraa'a istikshafiya mutaalaca guud markaad samaynayso qaabka loo akhriya uu kala gadisan yahay idan buugga aad akhrinayso iyo hadafka aad ka leedahay waa in la garan karaa laakiin qiraa'adu waxay u baahan tahay sabir iyo isbaris wax walbana sabir baa lagu gaadhaa Thomas Edison odagii la odhan jiray ee Maraykan marka laga reebo casrigan dambe ragga wax soo saaray dadkii hore ama qarnigii 20aad qaybtiisii hore ilaa intii la garanayo waa ninkii ugu badnaa inventions lahaa wax soo saar ikhtiraacad kun baan filayaa 93 baateen buu leeyahay sagaal ka mid waa dhisayno 1480 baateen oo ah qalab uu soo saaray ayaa waxay weydiiyeen abqarinimadu maxay ka koobantahay bay yiraahdaan ma ilhaam ba wuxuu ilaahay kugu ilhaamay fikrad kugu soo dhacdayba markaas wuxuu yiri 1% na waa ilhaam 99 na waa aqd jadiid buu yiri waa dadaal iyo sabr waxaan uga jeedaa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun waxaynu u baahannahay qiraa'ada markaynu leenahay wax akhri marka hore qofku qiraa'ada uu bilaabayo way ku dhib badan tahay maalmaha hore waa daal meedan waxay u baahan tahay inaad